ee videoga sababaha u duwa wax kamida maalmahan sheeka Facebook nagu waashide ee ku saabsan qabiilka horta mid koowaad waxay tahay daarood iyo hawiye sheekada hadda meesha taagan tahay soo maaha bal daarood iyo hawiye laba nin la dhihi jiray waa horeen dhinteen ma nool adiga had hiblaya lagu dhahay nin Jimali yiraahdo hiblaya lagu dhahaa so daaroodna ma matali karto oo ninka ahaa waa hor u dhintay hooyada abuulankeed xitaa kuma soo gaarin qofku ahaa mid ka hawiye qofka lahaa nin la dhihi jiray waa hor u dhintay laakiin adiga shakhsiyaad tahay aabaha ku aftirsanaysa ninkaas kuma aftirsanaysid mid kale oo ka maqan xitaa qabiil fiidiyoyaasha dhan la soo duubay qurbaha lagu soo duubay fiidiyo lagu duubay wadanka dhexdiisa kuma jiro waayo waa wada arkeenay dadka iska soo duwaamaysan dad Soomaaliya ku sugan qabiilkii marka wadamada kale oo horumar imaatin waxay ahayd dadka degan sida u dhaqmaan wadamadaas inaad tusaale inta ka qaadatin dadkiina la dhex imaataan qabiilkii wadanka ka sii dhamaanayna ku sii deganaatin oo lafaha idinka gala maaha taasoo jahilnimada ka mid ah mid laad hadaa wax fiican faafinaysid oo wax fiican ka hadlaysid waa wajigaaga xirtay bal waxa isweydiisaa qabiil inuu wax xun yahay adaa wajigaaga qarina ilaa wax fiican marka faafinaysid wajigaaga ma qarinaysid laakiin wax xun marka faafinaysid wajigaaga qarinaysa sax so ina wax xun faafinaysid orta taas aad tusaale kugu filan mid kale siyaasaddu waa ka hadli kartaa ra'yi wax ka dhiiban kartaa waa siyaasadda wadankaaga qusaysaa saas ku haboon saas kuma waa dhigi kartaa laakiin se naagaha intee wajiyada soo xirtaan sheekada qabiil u bedelay qabiil adiga qurbaha imaaday dadka alla nooshaay ee wadanka ugu imaaday sidee u nool yihiin bal fiiri qabiilna Soomaali sidoo dhigay bal labadaba barbar inta isku sameeysid isku fiiri adiga maantana hadaa caadintid iyo hadaa aflagaadeesid qolkaaga caad meesha ku cayso videoga ku duubta kama baxaayo macnaha qof kale wax ugu dhimi kartid soo maxaa isku macnaha u dhaheesaaba qabiil asaas adiga shakhsi ahaantaada danahaada qabso ku mashquul danahaada waayo ogsoono qabiil 24 sano wadankeena dagaalka jira maanta qabiil walba markii dad laga dilo xal laga gaara intaysan dadkaas dhiman lama badbaadiyay xalkii si wada hadal oo deganaan loo maraadiyay mid kale qabiil inuu soo wax fi wanaagsan ahayn waxa tusaale kugu filan Soomaali meesha ay maros 24 sano istagaalona wali ma jiro raga ku dhintay hantiya ku baabaaday wali qabiil laha qabiil hebel ana ka adkaado madaxa kaga taagan ma jiro taas orta tusaale yar ku qaada bal in macna waxaan yihiin wax cudur socda yihiin laakiin aan wax lagu kala qaadeen mid laada kugu soconaa waxay tahay daarood nin la dhihi jiray waa hor u dhintay hawiyana nin kale la dhihi jiray waa hor u dhintay marka adiga danahaada qabso shaqada ku taal waqtigaas qabso siyaasadda wadanka ra'yi wax ka dhiiban kartaa laakiin daarooda saan hawiyo saanada tiro xuquuq musu korneys adiga dantaada ina qabsatid oo waxa ku qosay ku mashquulshay dantaada ku jirta soo inta videoga soo duubay hadii ay jiraan wax kale to inay la hadashid ay jiraan ama wax ugu soo korneysna page-kayga xafiiskayga la soo xiriiri kartaa qabiilkan inaga taay waayo qabiil waan aragnay meesha una dhigay dadkiina naga reebay waa aragnay wadankiina naga burburiyay waa aragnay 24 sano hadaa ku tusaale qaada weyn goorma tusaale qaadanayna bal idinka xitaa naftiina weydiiya goorme isku noqonayna qabiilka inaga daay mid kale tana naagaha wajiisoo dudubanaya ina wax mudiin orta inta saab cadeen idinkugu filo wajigaaga maxaa u qarisayba hadaa wax wanaagsan faafinis ani hadda waxa ka hadlayo waa aaminsanayna wax fiican yihiin dadka badankoodna igu wada raacayaan soo wajigaaga ii fureyle waa ogaa ina wax fiican ka hadlayo soo adiga waxun ina wadid wajigaaga soo qarisay soo isqabta inaga daa sheekada romantic hadii inaga dhamaatay inaga daa ina qabiil inoo bilaadaan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh